kusoo dhawaada العدالة channel wararka maanta idin hayno waxa kamid ah shir muqdisho ka soconayo oo shalay ka bilaabmay shirkaas oo loogu hadlayo tiknoolajiyada socon doona saddex maalmood ujeedadiisuna tahay sida loo soo bandhigi lahaa heerka tiknoolajiyada Soomaaliya iyo sida loogu faa'iideysan lahaa halkan ayaadna ka daawan doontaa ووجه عصب عن صوماليا هور لوغا بران شركة تكنولوجيا oo sanadkiisii labaad magaalada caasimadda ee Muqdisho lagu qabanayo waa madal kulmisay siyaasiyiin ganacsato iyo dhalinyaro soo bandhigaya hal-abuurkooda waxaan ugu talagalnay Muqdisho Tech Summit inaan ku soo bandhigno in ay Soomaaliya ay la soo qabsanayso caalamka markii la yiraahdo xagga teknoolajiyada oo ay soo badanayaan shirkado badan oo teknoolojiya doodo iyo khudbado xooga lagu saaray tiknoolajiyada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ka faa'iideysigeeda ayaa maanta shirka looga hadlay in sare loo qaado wax soo saarka beeraha iyadoo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyada waxay ka mid ahayd muwaadicdii ugu muhiimsaneed ee maanta halkan looga hadlay fahma cabdi majiid laakiin marka laga hadlo wax soo saarka beerahan saan ognahay takhasus dad baa u leh oo aqoon u leh oo halkan shirkan ku jirin العدالة official wuxuu aad u raadiyo baad goobay dadkii beeraha ku takhasusay in shirkan inay isugu jireen macnaheedu waxay cadeynaysaa in aan loo dhameyn marka wax soo saarka beeraha tiknoolajiyada qayb maadaama ay ka tahay dadkiina inay halkan ku jireen waana arki doontaan dayad 22 jir ah aas-aastayna sadar biyooti 2018 teknoolajiga laba qaab oo uga faa'iideystaa midda koowaad oo soo saarista machines ani develop gareynay ina isticmaalo taas oo uga faa'iideystaa midda labaad digital marketing oo uga faa'iideystaa dhanka social media shirka tiknoolajiyada Muqdisho oo lagu soo bandhigay hal-abuuro kala duwan ayaa inta soo bandhigaysa waxay ku tartamaan abaalmarin taas oo sanadka loogu magac daray Khalid Awaad abaalmarintan oo sanadkii hore ugu guuleystay Khalid Ahmed Abdi oo hindisay guri bila kaas oo dadka barakacayaasha aan awoodin in ay koronto helaan lagu siinayo mid bilaash ah nasiib darro horaantii sanadkan ayaa Muqdisho lagu dilay inkastoo Soomaaliya aysan horumar baaxad leh ka gaarin tiknoolajiyada haddana shirkan wuxuu noqon karaa tallaabo iyo rajo u soo hoyatay dhalinyaro leh hal-abuur tiknoolajiyadeed belasheego BBC